dimuqraadiya la galo qodobka shanaad imtixaanaadkii iskuulaadka oo loo diyaaraha gebi ahaanba in la joojiyo oo aan la qaadin waxaanu tusaale ka soo qaadnay iskuulka la yiraahdo Sheekh Bashiir 2,000 arday baa dhigta jeelkii iyo waarkina waxay u jiraan 100 mitir bay u jiraan halista imtixaanka dib loo dhigo waxa nagala daraatay halista caruurteena ubadkeena halka jooga waxaan markaa go'aan ku gaadhnay imtixaanka totalamiinto in la joojiyo wasaaradda waqtiga ay qaadayso ardayda markay soo noqoto ha ka qaado laakiin maanta la joojiyo waxaan iyagana fasax lagu kala diraya dhammaan malcaamadaha iyo iskuulada madaxa banaan bareefadiyada meesha isugu yimaadaan dadkuba in iyagana fasax dheer ay yihiin markaan taa ka soo tago horta way afka saxaafaduna iyada naga dhaga dheer baa laga yaabaa horta imtixaanka laga hadlaya hadii imtixaan laga hadlo horta go'aanka waxa kulli qaadan doonta waan filayaa wasaaradda waxbarashada arinta inta badan ka jawaabi doonto oo sheegi doonto sida nidaamku noqonayo waayo dawladdu kulkay go'aan arrimo noocaas yimaadaan wasaaradaha dhan way wada shaqeeyaan markaan horta wax badan oo faahfaahin runtii kama hayo laakiin haddaan imtixaan marka la kulkan ka hadlo imtixaanaadkii kale misal anaga shahaadigo kale kaas kulli ma khusaysa imika waayo waqtiga imtixaanka shahaadigii waa bisha 7 kowdeeda marka ma dhawa isagu waqtigiisa loo mudeeyay ayuu ku socon doonaa kan kalena kulli wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka iyo qaranku iyaga isla eegi doona hadii imtixaanka la qaadi karo iyo hadaan la qaadi karin kulli waxaan fili doonaa in wasaaraddu baaq iyo wax ka soo saari doonto laakiin ma ogi runtii imika go'aankaas anigu wali ma hayo geesti kale